xuseen cabdi oo balsoo dhawow xilligan maxaa ka socda magaalada muqdisho waa sida xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda ka dhex taagan dhinacyada xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafadka faahfaahin kooban iga sii doorashada berri ka dhici doonta ee lagu dooran doono guddoonka golaha shacabka soo dhawow xuseen abuukar waa maasan tahay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya si gaara hoteelka jaziira waxaa gordhow kusoo ilaaday kuwan ay isugu yimaadeen xubnaha xildhibaanada mucaaradka sidaada kaga soo horjeeda xubnaha kalete muxaafidka ah dabcan kulankaasna waxa uu ahaa mid si gaar looga hadlayay xaalada guud ee dalka si gaar ahaaneed arrinta quseysa doorashada maalinta beritaa ka dhici doonta magaalada muqdisho xarunta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ku shaanay villa hargeysa oo dabcan beri martigelin doonta kulan ka duwan kulamadii hore xildhibaanadan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qeybtooda mucaaradka ee la magac baxay baarlamaanka xorta ah ayaa kulankooda ku yeeshay hoteelka jasiirad daqiiqado ka horna si toos usoo gabagaboobay waxay kaga arrinsadeen xaalada guud ee dalka xilligan uu ku jiro si gaar ahneed doorashada maalinta beritaa ka qabsoomi doonta magaalada muqdisho ee lagu dooran doono gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maadaama aan ognahay gudoomiyihii hore golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur mudoobe oo kusoo baxay doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo xilligan uu yahay mala dhiban tahay oo ma isku aragtaa qandho joogta ah madax xanuun labalaba zaa'ida bogo iyo beerka oo ku oola tabardarro zaa'ida xubnaha oo ku xanuuna ama socodka oo ku dhiba indhuhu ma ku madoobaadaan kaalay waxaan ku hayaa dhakhtarkaagii cisbitaalka fiqi hosbitaal waxaa kugu diyaaro 24 saac xigan kugu ah dhakhtar fiqi oo in ka badan 30 sano taqasus leh caafimaadku waa qaali iyo hadda gaar cisbitaalka fiqi oo kumaan eebo uu ku caafiyey ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda hogaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya marka beritoole muqdisho doorasho ka dhacaysa ee kulanka xildhibaanada baarlamaanka xorta la magac baxay ee kuwa mucaaradka dabcan ay ku yeeshay si gaar ah arrimahaas ay ku dul istaageen kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib xildhibaanada warbaahinta la hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan xasan firimbi sidoo kale xildhibaan Gamaadiid iyo xildhibaano kale oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ka tirsan kuwaas oo iyagu si cad kaga soo horjeestay meel cadna ka istaagay doorasho maalinta beritaa ka dhacaysa xarunta villa hargeysa muqdisho waxaana gebi ahaanba waxba kama jiraan ama baadil xildhibaanada ay ku tilmaameen doorashada beri villa hargeysa ka dhaceyso ay sheegeen inay tahay mid shuruucda dalka u degsana dastuurka ugu horreeyay gebi ahaan baalmarsan waxa beritoole muqdisho ka dhacayna aanay ahayn doorasho ee ay tahay wax heshiis lagu wada yahay oo xildhibaano dowladda dabcan si gaar u hoostago cadaqaataan qeybadba ka hor ay ku sheegi jireen dabcan in doorashadaas ay qabsanayaan muqdishona ay ka dhaceyso xusniyo bal dhanka kale guddoonka golaha shacabka beri la dooran doonaa musharaxiin ayaana u cadcad bal dhankaas warbixin iga sii abuukar musharaxiinta maalinta beritaa ku tartami doonta doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya cidda maanta ugu cadcad dabcan dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo bulshadu ay si gaar ah u dul istaagayaan ayaa waxay tahay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya kaasoo ah Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo jaamac loo garan og yahay naanayso kala duwan leh laakiin jaamac maalmihi la soo dhaafay dabcan waxa uu waday oo la kala duwan oo ku aadan doonistiisa kursiga guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xubno kala duwan oo dabcan kala hore qaybtood isku cisile kulankii xildhibaanada toddobaadkii ay ku lahaayeen gudaha magaalada muqdisho oo ka mid yahay xildhibaan saadaadna dabcan ay hayeen kuwa u tartamaya doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya balse kulan aan loo kala harin muqdisho ka dhacay oo qayb ka noqday hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe waxay keentay xildhibaan saadaad isagoo kale xubno kale qaarkood inay si toos u shaaciyaan in ay iska casileen ama dabcan ay isaga hareen baaraade tartankii ay ugu jireen helitaanka kursiga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayna u tanaasuleen ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Maxamed Nuur jaamac oo dabcan guddoonka u tartamaya bal xusniyo maalinka berri maxaa laga fili karaa doorashada halkaas ka dhici doonta abuukar maalinta beritaa intaa la gaarin dowlatuskii ugu weynaa iyo wasiir jaamac daqiiqado ka hor sameeyey dhankiisa kulan kusoo gabagaboomay magaalada muqdisho waxaa kala qayb qaatay oo ka qayb galay inta ugu badan xildhibaanada laga soo doortay deegaanada dowlad goboleedka galmudug kulankaasna waxaa qayb ka ah xildhibaano iyo sidoo kaleeta senataro ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kasoo gaal dhanka deegaanka ama dowlad goboleedka galmudug marka kulanka markuu soo gabagaboomay kadib qayb ka mid ah mas'uuliyiinta kala duwan shirkaasi ka qayb galay qaarkood qoraale kala duwan ay ka soo saareen way ka hadleen halka qaarkood isla madashaasi ay aragtiyada dabcan iyo hadallo kala duwan ay ka jeediyeen marka Cabdiqaadir jaamac dhowrtuska maanta uu sameeyay iyo kulankii uu la yeeshay xildhibaanadii ugu badnaa ee ka soo jeeda deegaanada galmudug oo labada heer baarlamaanka isugu jira waxaa tusaale cad ka bixinaysa wax beritoole xarunta villa hargeysa ee baarlamaanku ku shiraya ka dhici doona inay tahay wax xilligan sii muujinaya Cabdiqaadir jaamac wadada uu ku socday inuu yahay ama uu noqonayo gudoomiyaha kan xiga ee Aadan Madoobe bedeli doona